هيكل محمد موسى وأديك الصوت في شيء أو عن كل كاحية مالية أبشر محمد حسن ومهد كيد أولياء وقل قران ودهب كنت قراءة وسنغافوري هذا أول وكيل شيء أو كل كاحية هيكل محمد موسى هيكل أديك كوكيل نكاحات مهد موقف هذه حسين بركة عليه دورنا على marka waxaan dhihi lahaa midka iyo gabadha waxaa la yidhi ninkii gabadh reer soo koriyey oo quruxda aad yaabto oo lagu soo juhdi la geliyey ninkii intuu yidhi hallaysiiyo nin ka geysisan ma jiraan cidda gabadha dhashay gabadhay ku soo jiidaya tacabeeleen soo koriyeen cilmi bareen oo inta loo yimid inuu yimi yidhaahda gabadhiinaan idinka doonaynaa ayaguna siiyaan cid ka deeqsisani ma jirto waayo gabadh ay intaa kusoo tabcayeen soo koriyeen soo kabiyeen kusoo tabceen waxbareen ayaa intu u yimaada ayay siinayaan marka cid ka deeqsisani ma jirtaa leedahay gabadhii lagu soo tabcay juudigaa la geliyey ciddii bixisay waxaan leeyahay dardaaran baanu sheegayaa labadii jaanib wiilka iyo gabadha horta waxaan waa u ducaynaynaa waxaan leenahay kuwii isku waara Allah ka dhigo amiin wa khayr waxa kale aan u fadhinaa waxa weeye khayr baynu u fadhinaa waxaynu u fadhinaa kuwa islaamka u dhisayna meel la isugu yimaado meeshii u khayr badeed maadaama qoys islaameed la dhisay waxaan leeyahay kuwa isku waara oo khayr qaba Allah kala siiyo Allah ka dhigo amiin waxaan wiilka ku leeyahay wiilow gabadha darbana lagu soo tabcay oo soo koriyo soo kabiyay gabadha waa loo sabraa waxaan leeyahay ku sabr gabadha iyana waxaan leeyahay gabadhna waxaan leeyahay sidaas silay baan leeyahay waxa weeyaan إن شاء الله الله يكرمك كويس وارع كويس سكوارع الله يكرمك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. البنك هو هذلي البنك هو هذلي ما شاء الله. وين هاي أبو ما سيها البنك هو إنه قبل السياح. جامع أي مركز سياحة أو مهنة بلارن مركز كسوي جديدين sidoo kalena kamida maanta halkan soo gaaray dadka markaasi noogu tatarsareeya waxaana markaas soo yahay sidoo kale inuu daaweeyo marka la fiiriyo inuu ka soo qaybgalo xafladda badan gurigan halkan aan ku dhisayno naadiya boqorada isteelka iyo sidoo kale haykal maxamed muuse oo ah laba qof oo inagu qaaliya waa laba qof oo qiimo badan tahay leh sidoo kale miisaan fadhiya maxaa yeelay dadka ku shacbiga badan faraha bulshada waana dadka ku akhlaaqda fiican dadka markaasi ugu asluubta badan iyo dadka ugu qaalisan dhinaca faraha bulshada waxaana ku xiran malaayiin qof kuwaas oo ay markaasi ugu barteen hadal wanaagsan iyo wax markaasi dadka faraha bulshada aan dhib markaa aan ku ahayn waxaan leenahay farxad bay noo tahay caawa ama maanta in halkan aan joogno xafladan meherka walaasheena boqorada isteelka iyo sidoo kale walaalkeen haykal waxaana halkan ku aqalgalayaa waa laba beel waaweyn oo ah laba beel oo markaasi boqortooyo ah laba beel oo qiimo badan qaali ah aadna markaasi loo wada garanayo ilan qabiilku waa litacaarifu in la isbartana waa muhiim Soomaalida waxay tiraahdaa waxaa taqaan guurso waxaa taqaan lagu dhar sidaa darada markaa ceeb ma ahan in qabiilka markaasi la isbarto
ومركز ما أهان وحتى كان على الوضع هجاك وحرب على فكرة إن سيدو ذكرنا يدو قيبها الدنبي قبل بدأ وحرب على حلقة إن أن أسود اليوم عبد الله أحمد أو مركز ما نقص مالية ما دام إن هسه سماوة أيضا وقت يخرج بدن در إلهي وكرساه هل كان مركز در إلهي وحنا ومهم نقرأ لك إن مركز ومن ضد الدب علينا عبد الله أحمد سودو مركز والله دبات الجوريسي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لما أنت تذكر الشرف كان في اليوم السلام يا أبو السلام يا منصب كريم بما هوليه سلام كتب إلهي بما إليا إلهو كل مية قواه لو كل مو هو خير كبدل متكملة وكل فرحة له وحالكم ما أنت هتكون قرينا أروسكا لبل ليدر وأعطوا قيمة بدل ومراية البرشدة وكاك تاريخ تماتا والله والله قرروا أدوم كان عنك هيكل محمد موسى يوم علي أبشر ويقعدوا قررنا وحيلاقي مهدية إلى المانتا مرحاتي كانوا قرنوه ميركودي وأنا أبو فرحوه وحكوا يرى القلايا لكن بدون آية كبر أرتيوها ويا من كبر الصوت تكبر بارو كنا وحلي أنا ورد وحول هاي أمين كروح كسر كذا قوس كيوه ريء اللي كم يتشعل كتوه اللي موجود ورا ذكرنا أحوال أنا وكنا وكنا أنت يقول بكري والله تاسع شكاك فلان هذا يا نوار بدكم علينا gabadha aan siisay waa waxa lagu filanfaa qoyska ay ka soo jeedo iyo shakhsiyadeeda iyo teetanka ay sirto boqorada waa teetan aad u qiimo badan waa la gabadha shax ku tilmaaman aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa horena waa isaga guursan jirnay waa la isnaqaanaa هذه ألبام إذا كم هالعلينا شرفتها أدوم شرفتين وأنا مهزتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبيشي ugu horeysay oo jacayl u dhimta وهاك أبو مركزي ومهزتي هاي وحلنا مسألة عبد الله أحمد سنة وشجرة وهو يريد waxaan naga soo jeedaa qofkii ugu horeeyay ee jacayl u geeriyooday qofkii ugu horeeyay in boodhari waa marka Soomaaliya marka sida daraaddeed boodhari way soo booqan doontaa boqoradan halkan markay tagto waa la geyn doonaa goobtii iyo sidoo kale weli gurigii iyo meeshii sida qaabkeeda u dhisantaa weli ku qoraya boodhari insha Allah waxay ka mid noqon doontaa inta ay ku jirto bisha malabka ee Soomaaliland ay joogto goobaha dalxiiska loo geyn doono goobtaasi jacaylka ee taariikhda markaasi ku xusan waayahay xafladda waxaan markaas soo gaarnay meelihii ugu muhiimsanaa waa halka
dhammaan dadkan dhan ay sugayaan iyo dadka waqti xaadirkan live streamka nagala socda ee si toos ah u daawanaya iyo dadka goobta markaas ku sugan dhammaan waxay la ku raaricinayaan waa halkan nikaaxa ama meherka halkan ka dhici doona ee inagu weyn inagu qaaliga oo dhammaan aan wada sugayno waxaan rabaa halkan in markaas uu soo fadhiisto Sheekh Cabdikariim ماري أبيض ولا ضوء دي وكو إدري كحكي هذاك هو مقيم يا ماري أبيض ها مقيم يوغانو كتاب جامع هون أبيه وكيل شيء الويل كان وكيل وصادر صدي لبضب وكيل الجوجان شيخ الله وكيل شيء أقولنا أديركي أما قفك وكيل كأها الجوجو أو أصيغنا كمين دونه sida caadiga dhaqanku yahay mar walbana dhacda intaas waa sultaankii beesha habar awal gacanta laga qaban rabaa kaas sultaankii beesha habar awal ninkaas futishaarilaha ayaa wakiil ka ah هاي تتا ماشي وجام قريننا حسينو ماشي وجام قريننا ما اسكديس حسينو ماشي نيجي هو استاجير تقنا وياه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أولا محمد صلى الله عليه وسلم كل حفظه وحفظه إلى نوع عقد الشرع وفحصان وإله راضي وكيها أن نقول الله هذا bulshada meesha joogto dhan maadaama nikaaxu uu ku dhacayo jamac ama ijtimaaci uu ku dhacayo dhammaan waa wada markhaati anaa markhaati gooni oo hal iyo laba iyo maadaama dadku ay badan yihiin waa inaad ogaatiin inaad dhammaantiina caqadka dhacitaankiisa aad markhaati ka tihiin gabadha waxaa la yidhaahdaa maariyo abshir maxamed xasan wiilkana waxaa la yidhaahdaa haykal maxamed muuse wiilka hadda lama joogo waxaa u wakiil ah walaalkiis aadan u wakiila sidaas ogaanaysiin gabadha aabaheeda anigu wakiishay inaan caqad ka rido mahadkeeduna waa 100 garaan oo dahab ah oo finti una ah nooca sinkabuurigana ah sidaas ogaanaysiin caqadka gudaynaa intaasba inaad markhaati ka ahaataan oo aad joogtaan maadaama dhalinyaro iyo nuquubsho iyo akhyaar dhammaan ay meesha joogaan dad haddana dhammaan wada muslimiin oo ahlu taqwa ah aad wada tihiin
ضد عادي وصول بنا فقط صورين كالمية والغفر إلى النقاط مقاتي سلا ضد يا ربك البلانتي ومحاكي المقاتيالو سلا سلا عقد كان عليها الدولة مدعي لله عبد الكريم الشيخ عبد الله محمود حسن عقد الدولة والله هو شيء وانا بقول لنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلوات الله وازكى تسليماته عليه اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان له به وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الودود فاني ابالي بكم الامم يوم القيامه تنكح المراه لاربع لجمالها ولمالها ولدينها ولحسبها فاظفر بذات الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه والا تفعلوه تكن في الارض فتنه وفساد عريض النكاح معين للدين ومهين للشيطان اللعين وحسن دون عدو الله الحسين وسبب للتكفير الذي به مباحات سيد المرسلين لسائر النبيين وهو سنة الأنبياء وفعل الأتقياء وشعائر الإسلام وجنة من الفحشاء وإذن والأدب من رب السماء يجعل البعيد قريبا والأجنبي نصيبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المعبود الله المصطفى رسول الله وغير ما عمل به كتاب الله هو الهادي المفرق بين الحلال والحرام أزوج موكلك وأنكح موكلك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجت موكلك وأنكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي مالية أبشر محمد حسن بوكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ومهرها 100 جرام ذهب السنغافورية حالا في ذمة موكلك فلها المطالبة من موكلك متى شاء قبلت له نكاحها وتزويجها وزوج موكلك وأنكح موكلك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان زوجت موكلك وأنكحت موكلك هيكل محمد موسى بنت موكلي مريم أبشر محمد حسن بوكالة وليها إياي وبإذن وليها إياي ومهرها 100 جرام ذهب السنغافورية حالا في ذمة موكلك فعل مطالبة لك من موكلك متى شاء قبلت نكاحها له وتزويجها بالمهر المذكور هيكل محمد موسى وقدر تصور كل شيء أو عن كل كاحية مالية أبشر محمد حسن أو مهر كيد أو يا بقول قران أو ذهب كنت قراءة أو سنغافوري أعقب هذا أو وكل شيء عن كل كاحية هيكل محمد موسى هيكل أدير وكوكيل نكاح مهر كاس ما هو أبشر
nikaaxaas meherkaas oo loo هيكل محمد موسى أو عليك كسور كيشاي أو أنكم كاحية ماريا أبشر محمد حسن أو أبيه أو كسور كيشاي إن أنكم كاحية هيكل مهكذا أو بقول كران أو ذهب أو في تقرأ سيتقول أن كل يوم كل كاحية هيكل مهكاس نكاحاس أو أقبش meherkaas nikaaxaas walo هادي شيخ حسين بركة عليه دوّنا على خير الحمد لله الله نوع الله سكده الله سكده الله حتى النوع الله الله سكده الله